runtii goobtan ayaan uga bilaabayaa aniga qisadeeda. hooyo waa dareemi kartaa markaan hooyo ka hadlayo. anigu waxaan ahaa shakhsi waalid caasiya oo aan hooyadiis aan raali gelin, iska daa xitaa inuu raali geliye aan hadal macaan oo wanaagsan oo ah hooyo oo naxariis leh xitaa aan ku oran. hooyo suuxi waa jarmaadaa, waxay u jarmaadaa suuqa qudaarta oo ay ka shaqayso si ay inagu noogu soo raadiso quuta daruurigeega iyo waxaan cuni lahayn. runtii hooyo waxay qoraxdaa ay u fadhidaa waa aniga. رقيس والله باي لا تنقمس ديار وكيلو ديار وبان بردada quruxdeeda ma aragti cusubta ilarta bay ma xabada rabaan gadanayaa adoo basashan waxay saartaa miskiila baxay ugu shubay xoolaha noortiisa rabadaadkoodii way adoo رقيس هذا بعد الساعة basashan باي كيلو waa ka badan yahay qurux badan baa fadhiya macal tufaax baa haysaa ما شاء الله برو شاكونا بحرة لما كنا بسباسة بربرون واحد يقدر درباية ده جيدا مس بربروني لما كن بسباس كم سر qudaarta ka bacdi ay ka timaado hooyo ay soo shaqayso suuqa qudaarta waxay timaadaa guriga. ma nasato oo ma seexato, waxay hore ka gashaa shaqadii kale ee guriga oo bannaan oo ah inay weel dhaqdo, inay dhar dhaqdo. runtii intaas dhan hooyo shaqadaas dhan ay qabanayso, haddana waxaan ahaa mid aan anigu hooyo aan raali gelin oo aan xitaa ku oran hooyo macaan iska daa balaaba inuu hawshan hooyo qabanayso oo qayb ka qabtee. waa marnaba aan oran hooyo macaan hooyo say tahay. waqtiyada qaybtood markii ii yeesalada maxamed ma oran jirin hee hooyo macaan maxaa u baahan tahay, waxaan oran jiray hee eeyaahe iyo kelmada la mid ah. هاي ما أنطر ما كويا اليوم حيدي سنة هاي معانا. هذا نجد تغير ذو إيماننا لا إله إلا الله محمد رسول الله وسوق على وجه دوا فرديس. ده هاي يقصق راحكم مطيان هاي ما سوقنا هذا اللي مرادنا يا كميوتك اللي مرادنا. اسكبح هذه اسكبح أنا وإيماني اسكبح. هاي المهني وحن بعمل إيه كل عبينه كل دار معي هاي كان سو يستوي لهذا. غير iska daayo hawsha dhamayso la ilaaha illa maxaa rasuul ana iimaanaya. runtii hooyo waxaa dhici jirtay waqtiyada qaybtood inay iska fikirto oo murugoto. waxaa dhici jirtay sidoo kale waqtiyada qaybtood inay hooyo ku ducaysato inaan u noqdo waalid saalixa, wiil wanaagsan oo ah ilaahu wiilkayga beerkiisa barcadii mari. hooyo kastaana way jeceshahay, hooyo kastaana way ku ducaysataa inuu wiilkeedu u noqdo wiil wanaagsan oo ilaahay beerkiisa barcadu marayo. إله ربي رحمن الله كتوجا ولا أدنى بركة أنا حبدي أنا إله الله كتوجا محمد بكي سبر عادي مري وقلبي جيز حاجة وسجادي إله ربي رحمن عاسني بينك التعيين قلب مكتها كلا جرمية. إله ربي رحمن حق تص وارد حقيس تص. إله ربي رحمن وحكى عبري إن أولاد باري يقولك مال بيتشوجا أنا أيوة حفدت. إن أنا حتى هذا لقلب سن يا هذا لحم أنت بكو إلهه. eeyahay waxa dhacday maalin hooyo oo suuqa fadhida inaan lacag weydiistay, balse uma weydiisan sidii hooyo, sidii qof aniga igu leh waajibaad iga saaran yahay.
uma weydiisan waxaan u weydiistay sida qof caadi ah lacag ma noo soo diraysaa lacag baan u baahanahay suuqaan aadayna hooyana igu dhahdo hooyo qoraxda idinkan idin fadhiya adan ku fadhiya ku soo shaqeynaya wixii aan soo shaqeeyana hooyo meel kama jiraan runtii waxay ka mid yihiin waxyaabaha aanan ilaawi karin wiilkayba isoo wacay maxamed baa isoo wacay ilaa qeyr ka dhig muxuu sheegay waa talo maxamedow hooyo maxaa dhacay hooyo markaa isoo wacday see tahay hooyo shaqada ilaahay makuu barakeeyo hooyo waqti xaagat ilaahay makuu keen ma jirto hooyo lacag isiiba hadal iga bilaabaysaa waxaan shaqeeyo meel kalan geenaya adiga unbaa kuu keenayaa maxaa kaa qaldan markaa la qeylinaysaa hooyo oo mid kale markaa igu qeylinaysaa hooyo maqaayada adduun kusoo gagabaysay aakhiri adduunba hooyo waan ku siinayaa hadda dee wax leegat anaa kuu soo diray oo macaan haddii kale ii kaale kaasheer baa hayaan ku siiyay igu imaa meesha igadaa dhibkay hooyo haddii kale anaa kuu soo diray igadaa hooyo dhibka waxaa dhacday inaan suuqa u baxo xilli dambe 2 saac oo habeenimo ama 8 habeenimoba inaan suuqa u baxo oo ka soo laabto suuqa xilli dambe oo 7 saac 8 saac يعني labada habeenimo ilaa 3 habeenimo waxa dadku si u yaqaanaanba waxa dhici jirtay in hooyo isugto oo aan seexan iyada aniga walwaleysa subhanallah balse aanu intaas oo dhan ma dareemi jirin oo markaan soo galay guriga aan soo galay albaabkayga furtay igu tir hooyo maxaa ku soo daaday halkii la doonayay hooyo macaan xilliga maxaa soo jeeday hooyo macaaniga raalaaw aan u nasteexan lahaa aan ku bilaabay dhalinyarada iskala caawinayay iyo waad ogtahayba hooyo waxa weeye inaan dhalinyarada iskala caawinay oo aan hooyo marnaba aan kelmad raali gelinay aan ku oran isaacadan buu maqan yahay 7 saac bar baa la marayaa asaabana ku fadhiyaa xilligan buu maqan yahay xagu ku maqan yahay magaalada amni ma saacadan lama wareegi karo kan walwalba igu awoori la rabbi raxmaan soo hadiye waa ayaa bal intaasu traffiga qabtaay halo maxamed oo ay tahay maxamed seetahay ma maqleen hey maxay tahay maxaa saacada ku maqnaysi hooy inaan seexano saacadan banaanka deerka fadhiimiyaan ogeyn adag ku sugayo ma seexan ilaa ay maad ma seexanayo hay hadda ma imaanaya مساعدة أنا بمانين سديت ساعة محكم غنانسا هدي ما هو هدي ما هو دادقي إنكار سنين هو الدعاء هدي ما هو ساعدة أنا بران كوف دياي قبوغي يقول عياي ياوي أرك ساعدو سعد إيجن هاي ساعدة خمس ساعات هوي مين أدوك نسك صح سين كوسح أنا إيماني وأخت أصحاب ضد بنصب أصحاب نتشجع سين كوسح لا وسدت ساحبين ما ساعدة مقنت هاي هو اسك ساحن كرتي اسك صح ما أنا ساعة كر بردا يصعد عيساني ساعدة مقنت بردا يصعد عيساني هو عادي أنا أصحاب ضد بنصب أصحاب أنا سحبت يا درن أنا غلب بين runtii waa cajiib way jiraan boqolaal qof oo haweenkood baari oo ah raali geliya u naxariista wixii u baahan yihiin ka qabta balse anigu waxaan ahaa shakhsi intaas oo dhanba ka dhigala waxaa dhacday habeenada kamid ah gabadh aan in muddo istaalan oo xiriir lahayn oo la yiraahdo Salmo in aan habeenkii nolosheeda aragna inaan maaraj gareyno isu nimaadno aan guur iyo mustaqbal aan ka wada hadno aan kulano kulanka iyaga oo noo socda ayaa waxaa soo wacday hooyadeed marka waxaan kugu yeeray maadaama oo in muddo ah oo xiriirkan uu soo socday in aan ka wada hadalo yani mustaqbal iyo arrin guur waqti fiican oo badan oo nolosheena kamid ah waa soo wada qaadanay maadaama waqti baan soo soconay waxa go'aansaday halkan kugu yeeray inaanu ka tashano sidii nolosheena wax weey aan lama noqon lahayn والله horta maxamed inkastoo xiriirkeenu waqti badan u soo socday haddana saasi tahay aad baan ugu faraxsanahay maadaama soo bandhigtay arrimo ka mida mustaqbalkeena koleyto kole aad noo go'aamso un bay nolosheeda noqonaysaa aad baan ugu faraxsanahay inaad nolosha ku midowno aad baan ugu faraxsanahay inaan caawo kulano oo ka tashano arrimo badan oo inaga xiriirkeena ah si xoojinaya maadaama arrimaha mustaqbal الله هوي
الو هوي معن ها هوي إمكان منيا هوي مي والله وأوجه أنا قوس هاي لكن هوي معن إمكان منيا أجرى لها أبنك أجرى لقلني هوي معن أيوه مع وقوع سانة أيوه إن والله محمد إمك وانتجي هوي يسوى عضي من يجعله هوي هدي مر سوقر عضينا كده صوت هوي ذي أدب أو شعله هاي ما وعادي ما دام هوي أده لسيد هنا هرت واحد حسكو أفكارنا أو هذا هوي بقولي ساي هرت حسوس أفكارنا تمام محاول حسكو هوي ذي يسوى عايز يقول حاجاتكم ويقول ولا لسانك سموجي أيه markayna u tago weeyaan hadda adiga jacaylkaaga waa ogahay sax laakiin soo hooyada jacaylkayga baanan qaadi karin soo maahan ma inaan nolosha ka wada hadallo oo caawis gulin oo inaan noqon day maxamed aan isfahanno inta wada joognaa waan wada hadlaynaa mar kale waa ka dhigan karnaa laakiin soo hooyo inaan imika u tago waa laga maarmaan maxamed inaan dhibo iska daaye hooyo waxaan jeclahay mar walba inaan farxad geliyo adna waxaad ka sheekeynaysaa aniga ila joogo waqti la qaado runtii markaan heesaha qaar maqlo heesahan waliba hooyada sida hooyoy jirkaagii waxaan ahay laga jaray jeex ka midaan hooyo waan ku jecelahay jiritaanka dunida hooyo joogitaanka admiga hooyo jirid laga abuuro aan jabaynin baatee runtii waxaan aad u dareemay markii ii qaaday heesta hooyo hooyoy jirkaagii waxaan ahay laga jaray jeex ka midaan hooyo waan ku jecelahay jiritaanka dunida hooyo joogitaanka admiga hooyo jirid laga abuuro aan jabaynin baatee intaasoo dhan aniga qalbiyadeeda waxa maysan taaban waayo waxay ahayd iyadu shakhsi hooyadeed ixtiraamta hooyadeed maqasha iyadoo suuqa joogta hooyadeed soo wacdo hooyo macaan haddaan ku imaanaya hooyo iga raalaha intaan kaa soo daahay hooyo macaan hooyo macaan hooyo macaan balse aniga way ugu yarayd kelmadda hooyo macaan inaan isticmaalo ama hooyo raligeliyo hooyo qorax bay noo fadhiisataa qudaar way noo rafaadaa way noo silicdaa intaasoo dhan hooyo iyadoo ay la kulmeen haddana waxay jecleed inaan anu noqdo wiil horumar gaara oo meel ka soo muuqda intaasoo dhan hooyo iyadoo ila jecel haddana hooyo waxaan oran kari waayay kelmadda hooyo macaan hooyo see tahay hooyo maxaa tabanaysaa hooyo macaan hooyo 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 waxaan isticmaali jiray kelmadaha eeyaha runtii waa musiibo weyn hooyaday oo ii nool oo ii joogta inaan farxad gelin waayo oo aan ka ducaysan waayo nasiib darro weeye aniga ii sugnaatay boqolaal qof oo hooyooyinkood ay dhinteen oo aan helin farxadda hooyo ayaa iga nasiib badan waayo iyagu hooyo maba haystaan anuu haystana waan farxad gelin kari waayo waxaa dhacday habeen anigoo suuqa isu diyaarinaya inay hooyo ii yeedho runtiina qalbigayga taabto hooyo oo weliba i dareensiiso qiimaha hooyanimada igu dhahdo maxamedow kaala hooyo haddaan baxaya maxaa ma beri nagu oo may hooyo haddina baxda ma xuma waa fiid saddex saac iska soo laabo waa caadi laakiin habeen walba ilaa kan hooyo 8 saac iimaanaysid anoo baxay ma 3 saac soo laabtaa hooyo waxa aqal galma oo ma shaqaysaa hooyo ma suuqda dhalinyaro ma asxaab sameeyay dhalinyaradu asxaabtan iska rabaa waarid ma lidin ma idinka walwala oo waarid ma ihmiya oo kaama walwala miya hooyo dabay war ma dhafra miyaan hooyo maxamed xuseen akhlaq ku noqomayso saan hooyo akhlaq ku noqomayso qof weyn baa tahay xilliga wax lagu sheegay ma joogtid xilliga waxa joogtaa wax walba adiga aad garan lahayd oo is celin lahayd oo iswaanin lahayd baa joogtaa hooyo xilli ani amaanta aan ku waaniyo oo hooyo ku walwalo xilliga dhibka iga ilaalin leed walwalka iga ilaalin walwalna ugu beertamay kula qurux badan tahay yaa maxaa walwala
hooyo inaan soo xabo suuqaas aroorta idin dhalmado habeenkii xilligaan nasan lahaa hooyo oo nasdii lahaa subaxdii aroorta shaqad u kala haysaa waxaad u raadinaysaa waxay cuni lahaayeen habeenkii nasan markaas dhii lahaa madan hooyo ku sugaa habeen walba ilaa kana banaankaas oo kuu fadhiyaa walwalkaas leeyahay wiilkaaga talow muxuu ku sugan yahay miyaas dhahaa أنا وين بعدين؟ ده هاي نويس أنا ما وينان هذا هذا نويس اسكت هاي أنا بقولي جماعة ده وينان بقولي أكتر واحد يبعد كتهاي أنا أقول لك أصحاب سمولي لأن يرى أنا بشاري وقت لغة هاي أصحاب طالب بشاري يسد إيه هاي أنا جيب بنان كايد حتى أفريو كيف أقدرن هاي يا هاي قرب سؤال الناس أغفل إسكالي جيسا ماذا هاي أنا جماعة هذا نصيب له oo hooyo haysataa dad ba maanta hooyo haysanin haddana wali naxariista hooyo ku dambaysa oo hooyo markay maqlaa ilmeeya adigii hooyo haystid ba hooyo macaan iga duceysan laadahay oo hooyo macaanto nasiib aad garanaysaa maanta aad qaarkaaga kula sheekaysid baa leedahay hooyo kabar qofkii aan hooyo haysan hooyo aan arkin muxuu dareemi lahaa hooyo adu sida dareemi lahaa maanta hooyo laan hooyo waa isoo dhashay waa soo rafaaday haddana waxa weeye hadal macaan oo garan maayo runtii deena dhalinyarnimo ay qaaday runtii wax fiican baa sheegtay hooyo adoon idilin imaagin ba haddana si yar oo fudud iyo caqli celisay hooyo waxa dareemi karaa ninka maanta hooyo laanta aan hooyo farxadeeda aan dareemi karin anoo haysto hooyo waliba inta hooyo aniga noo dadaalaysa noo rafaadaysa noo silcaysa waan haddana xaqeeda iyo farxadeeda aanan garanayn oo hal maalin xitaa shaqada aad aadaysid aan kaa nisin waayo hooyo wix maanta ka dambeeya waxaan adiga farxadaada ahayn hooyo macaan waxaan wanaagaaga ahayn shaqadii aad aajisteen hooyo ana aadaya waxay maanta ka dambeeya hooyo macaan waxa way farxadadan ka talinaya intaad adigu inoo sheegan ka ducaysanaya intaad adigu ii joogtid baan hooyo duca kala haraya runtii qof walba uu dhimanayaa geerida waa lagu kala horeynayaa laakiin waxa hooyo la'aanta maanta dareemi karaa ninka maanta hooyadiis haysan anoo haysta haddana hooyo farxad gelin waayo duca kala hadi waayo waa alcaasi baan ku sugnaa laakiin alxamdulilah hooyo caawada iyo aqli celiyey hooyo maxamed marka caamsi niyad baa ay dhahaysaa hooyo waa iska joogayaa hooyo intii aan kugu caasiyey waxa weye aan ku maqli waayey adiga ku farxad gelin waayey hadalada naxariis darra ah aan ku oran jiray aan hooyo macaan aan ku oran waayeen yaaha iyo waxa lamid aan ku dhihi jiray hooyo macaan xumaan kale iga maahan dhalinyarnimo ahayd hooyo waxaan kaa dalbanayaa caafiis waxa weeye hadda wixii ka dambeeyana hooyo farxadaada iyo wanaagaaga baa ka talinaya haye hooyo waa ku duceey hooyo waa ku duceey haye hooyo macaan ilaahay saan ha igu kaawado oo ku faraxsana caawa farxad qosolkayga caawa la keeni karaba ilaahay ku barakay hooyo ilaahay ku barakay haddana cashee farxadaada waxa maanta ka dambeeya waa caasnimo iska dhaafay hooyo adoo iino inaan duca kala haro Allah waa sugay runtii habeenkaas wixii ka dambeeyay hooyo anay qalbigayga taawato igu dhahdo hooyo maxamed waan ku dhalay waan kugu rafaaday dhexdan kuu xidhay waa ogtahay inaanan aabba lahayn suuqa qudaarta ayaan u tilmaada oo bacad baan u fadhiistaa qorax baad idiin fadhiistaa lacagta yar ee aan helo ee aan suuqa ka soo qabto meel kale ma geeyo idinkaa noloshana ku maamula intaasoo dhan hooyo macaan anoo kuu maraya dhibaatadaasoo dhan kuu maray jecel inaa horumar gaadho haddana hooyo hadal naxariis leh oo macaan baan kaa waayay hooyo macaan hooyo maxaad u baahan tahay iska badaa bilaaba inaad hawsha kale aa wax ka qabato runtii maalintaas wixii ka dambeeyey waxaan go'aan ku gaaray inaan hooyadii farxad geliyo hooyadii waqti badan way ku ducaysatay ilaahu wiilkayga beerkiisa barcadii mari balse habeenkaas ayaa ducadeeda aqbalay oon hooyo u soo jeestay runtii wixii maalinta ka dambeeyey booska hooyada anaa buuxiyey shaqooyinka hooyo qaban jirtay anaa qabtaa suuxii waxaan u jarmaaday suuqii ay hooyo fadhiisan jirtay ee qudaarta waan soo shaqeeyey qudaartii waan soo gaday lacagtaan soo qabtay waan xaafadaan ku soo noqday miiso iskaleeyaa ogsiya isin iskaleeyaa babayna waa rabaa babay yaanya fiican weeye yaanya fiican babayna waa Ahmed Baya ميسا ولا ميسا يا المسا حاول ميسا الميسان هو عادي يا الميسا والله كنات سارية كورت كيلو يعني كيلو واي مسوكا كيلو وشينات لا سميع واتشبيه هاي
ها ما أنت في عم بوشقي حوي العك في عنه واقبتي بابايي نوائي بي غيب يعني يدي نوائي بي ما قرح وكروشها قرح بعد كسنوف في الدنشتاي بعد كسنوف في الدنشت ما هذا صحري يا ظهره ايوه هي anoo dareemay kuleylka iyo meesha hooyo fariisan jirtay inay ahayd meel qorax badan intaas oo hooyo nagu samri jirtay haddana intaas ay u dheereed inaan raali gelin inaan imaado guriga igana hortimaado hooyo oo weel wada oo rabto sidii caadada u ahayd inay weel ka dhaqdo ما هو يخلق الله كسي maanta aan dhaqay dhaqay man shalay hadda dhaqay maanta aan dhaqay oo xaaska tago iska naso ilaahay ma ka qaada adiga hay hooy soo naxaray marka jikada soo xaray hooy hay bas taas kama ogolaan oo weelkii ana gacanteeda ku dhaqay waxa maalintaas wixii ka dambeeyay aan soo jeestay san hooyaday u farxad gelin lahaa hooyaday aan u farxad gelin lahaa uga ducaysan lahaa والله هو يمعن حاوبان تاي لوجه ودوق لها ماذا حكى لهم كم لها وحي شقوينك هوي قوين شرتي أنا وأمان فقطه ما أنت أدير قرابه ما أنت هوي أفرح القليل وايو هوي يا أنيقة من هرين دونه إلهي بأوك من دونه أو هرين دونه إلهي بأوك بس أنت هوي إنه شاي إن أفرح القليل إن كدو عايزته إن هذا المعن أنكو يراهو شقوينك هوي قوين شرتينا أنا نقول ديار قريبه هوي وإيادي هوي معن محمد بيئيسو قبو هاي هوي معن وأوكيني مدو هوي هوي كلاس بيا إيكين إلهي باري إيكين هوي شكرا هوي إلهي كبركة إلهي كبركة هوي إلهي كبركة والله يورتو أهل وناقصن بس أنا كان نسيب درو هوي إلهي إلهي بيجي على ضيق قاضي بس أنا وحاجة نسيب درن إنك هوي دون وشاي فرحة قلنا ويا أديع ويا بار نقوم ويا وشقين ويا هوي أديع ويا أنت نوش هاي كدو عسم ويا تازينة تاي قيلة عن قلبي كتيرين هوي ذا حد يكون نوشاي ولا الكيام ولا شيء كفايديسو وفرحة قلي ودعاء كلها هوي ذا فرحة قلي كتيري هوي ذا واحد أباهن تاينا وقوة haddii hooyada suuqa ka shaqeyso ama shaqooyin suuqa qabato qorax fariisato baad fariisato hooyada haddii ay dukaamo waaweyn leedahay maanta adigu bedel hooyada farxadeeda ka tali haddii hooyada dhimatayna walaalkayo hooyada maanta ducay kaga baahan tahay runtii waxaan la hadlayaa inta hooyooyinkood ay nool yihiin hooyadii inta ay idin nooshahay farxad geliya hooyadinka ducaysta waxaan ahaa maxamedkii shalay wada caasiga ahaa balse maanta hooyadiis ka ducaysanaya way dheer tahay qisadeedu runtii inta muhiimka ah ee lagu waana qaadan karo baan jeclaysteen in idin wadaago aad baan u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu